بسم الله. الصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين. حقني وهنون فيرتشوال أكاديمي. هنون فيرتشوال أكاديمي waxaan ka soo gudbinaa tacliinta lagu barto min dugsiga sare ilaa heer jaamacadeed oo ku salaysan qaacidooyin ama calculation laga shaqeeyo iyaanu xaggan jawaabahooda kaga jawaabnaa. maanta mawduuceenu aan xaggan aan kusoo qeexayno waxa weeyaan dariskeenii taxanaha ahaa oo ahaa transportation model qaybtiisii afraad oo ah vogel approximation method. intaanan u guuda gelin vogel approximation bal fadlan aan dib u yar soo qeexno waxaanu horey soo fiirnay. maanta qaybahan duruustii ka horreeyay waxaanu kusoo sheegnayba ahayd how to find visible solution of transportation model by using northwest corner method ayaan hore soo sheegnay. sidoo kale waxaan haddana kusoo xusnay by using least cost cell method. maantana markaa waxaan hadduu ilaahay ka shaqayn doonaa how to find visible solution of transportation by using vogel approximation method. sidoo kale hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan soo qaadan doonaa optimality of transportation model si loo raadiyo oo iyakuna stepi aada u dheer ah oo laakiin aan soo gagaabi doono oo sida ugu dhibta yar aad inaad ku fahantaan idinku muujin doono oo ah laba siyaabo laga shaqayn doonaa UV or modified distribution method ama stepping stone method. labada qaybood ayaa lagaga shaqayn doonaa. marka fadlan aan u guuda galno vogel approximation method. vogel approximation method ama vam inaanu ka shaqayno first of all aanu qaaxno examplekan aan soo qaadano. examplekan waxaana la siiyey 3 source as well as waxaana la siiyey 4 destination. sourciga marka laga soo qaado destinationka la geeyo kharashkooda walba xaggana lagu soo sheegay. example marka s1 laga soo qaado oo destination a la geeyo costiga ku baxayayo waa 4. s1 marka laga soo qaado oo b la geeyo costiga ku baxayayo waa 2. s1 marka laga soo qaado c la geeyo costiga ku baxaya waa 8. same time saasoo kale icon kalena ay ku wada xusan yihiin. maxaa kaloo la siiyey supply-gii baana la siiyey, demandgii dadkii rabayna xaggana laga siiyey. marka waxaana la weydiiyey find the total cost of transportation by using vogel approximation method. saasana la weydiiyey. marka saan ugu shaqayno su-aalaha caynkan marka koowaad oo mar walba waxaanu sameynaynaa waan iska hubinaynaa inuu transportationkan uu yahay balanced ama unbalanced. hadduu balanced yahay waxaanu si gudbaynaa oo kasii shaqaynaynaa vogel approximation method. hadduunse balanced ahayn dib baan usoo noqonaynaa oo balanced baan soo sameynaynaa oo fadlan si lagaga sameyn lahayn video gaar aan uga sameynay ood ka fiirsan kartaa. marka aan fiirino bal inay balance yihiin labadan cost. waxaanu haysanaa xaggan 200 iyo labadan supply iyo demand. xaggan waxaan haysanaa 250 lagu daray 350 waa 600. 600 lagu daray 400 waxaan haysanaa waa 1000. supply-geenu waa 1000. demandiguna waa 1000 inaan kaga sii shaqeyno qaybtan. hadduuse uu noqon waayo fadlan dib baanu noqonaynaa oon soo lekasiinaa. qaab loo soo shaqeeya jira qaabkaana videoga gaarada insha Allah ka fiirsada. okay 300 marka lagu daro 300 waa 600. 600 marka lagu daro 250 waa 850. 850 marka 150 lagu daro waa 1000. xaggan wuxuu la tusiyaa transportation-keenu wuxuu yahay waa balanced. so vogel approximation ka waan kaga shaqeyn karnaa. inaan vogel approximation meterka kaga shaqeyno marka hore waxaanu raadinaynaa waxa weeyaan waa opportunity cost.
saad horey u ogsonaydeen waxaan north west corner markaan kaga soo shaqeynay waxaan qaadanaynay hoostigeena dhinaca north west xiga markaanu least cost aan kaga soo shaqeynay waxaan soo qaadanaynay costiga ugu lisan ama ugu yar qaybtanse markaan vogal approximationkaan qaadanayno waxaan qaadanaynaa opportunity costigaasaan qaadanaynaa then opportunity costiga ayaa loo raadiyaa opportunity cost waxaa loo raadiyaa marka hore tablekan oo kale aan samaysanaynaa magacaan baan siinaynaa kow laba saddex afar kolba intaanaan awoodno kow laba saddex afar shan kabacdi waxaan qaadanaynaa stepka koobaad qaybtan aan imanaynaa ta ugu yar rowgan waa lambar labo ka ugu yare kusii xigaa ka ugu yarka ku xigay waa nambar 5 labadaasaan kala jaraynaa labadaa markaan kala jarno xaggana ku qoraynaa ka labo 4 marka labo laga jaro waa labo haddana rowgan kale labaad baan imanaynaa ka ugu yari waa 3 ka ugu yarka ku xigay waa 6 marka 3 laga jaro waxaan haysanaa 3 qaybtan aan imanaynaa ka ugu yari waa 3 ka ugu yarka ku xiga waa 4 labadaa markaan kala jarno xaggan wax leenahay 1 ama 1 qaybtan aan imanaynaa qaybtii rowgii waanu dhammaynay columnkii baan imanaynaa columkan ka ugu yar waa 3 3 ka ku sii xiga ugu yar waa 5 labadaa markaan kala jarno labo ayaan waxaan ku leenahay qaybta xigta waxaan haysanaa ka ugu yar waa 4 ka 4 ka ku xigaya waa 6 waxaan haysanaa xagga 2 4 labo marka la kala jaro xagna waa 2 3 marka 4 laga jaro xaggaasi waa 1 okay markaan xaggan imaano qaybtan haddana fiirinayna qaybta markaan fiirino ka ugu weyn baan qaadanaynaa kooda ugu weyn waa kee waa lambar 3 lambar 3 baan goobaynaynaa then lambar 3 qaybta ay ku aadan tahay baan first of all aan select garanaynaa that means how to opportunity cost baan kusoo dhaqaaqnay sidii baan selkan ku allocate garan lahayn aan kusoo dooranayna then xaggan aan niminay S2 baan taaganahay S2 marka kooda ugu yar waa kee waa 3 saddexdaasaan qaadanaynaa hoos maxaan haysanaa demandigeenu 300 gadaal xaggan maxaan haysanaa waxaan haysanaa dhinaca waxaan ka haysanaa 350 350 iyo 300 midkee u yar 300 baa u yar 300 waxaan ku qoraynaa 300 markaan ku qorno qaybtan maxay noqonaysaa markaa fully satisfied bay noqonaysaa that means qaybtan satisfied bay noqonaysaa qaybtan satisfied bay noqonaysaa qaybtan satisfied bay noqonaysaa qaybtan marka 300 laga jaro waxaan haysanaa waa eber qaybta kale 350 markaan ka jarno 300 maxaanu haysanaa 50 okay stepkaas xaggaasaan ku dhammaynay stepkan xigaa imka usii gudbayna then have a look markaan xaggan aan nimaano suwaa markaan saa u nimaano ta ugu yar waa 2 ta ugu yarta ku xigtay waa maxay waa 3 2 marka 3 laga jaro maxaan haysanaa 3 xaggan ta ugu yar waa imisa waa 6 ta ugu yarta ku xigtay waa imisa waa 7 7 marka 6 laga jaro maxaan haysanaa 1 xaggan ta ugu yar waa imisa waa 3 ta ugu yarta ku xigtay waa imisa waa 4 3 marka 4 laga jaro maxaan haysanaa 1 qaybtan kore haddana waxaan imanaa columnkan imanayna ta ugu yar xaggani waa 3 ta ugu yarta ku xigta waa maxay waa 5 labadaa markaan kala jarno maxaan leynaa xagga 2 same time 4 marka laga jaro 2 4 marka laga jaro 2 qaybtan kalese maadaama aanan waxba haysanin waxba xaggaa kama haysanin have a look iminka maxaan samaynaynaa waxaanu ka dhex dooranaynaa lambarka ugu weyn maxaa ugu weyn 3 baa ugu weyn 3daasaan goobo ayaan dooranaynaa 3da markaan dooranno ayaan gadaal ay fiirinaynaa markaan qaybtan aan fiirino kooda ugu yar waa maxay waa 2 labadaasaan qaadanaynaa hoos waxaan haysanaa 300 baan haysanaa dhinacana waxaan ka haysanaa 250 350 iyo 300 kee baa yar 300 taasa yar 300 baan xagga ku qoranaynaa 300 markaan u qoranno waxay ka dhigan tahay column B-gani fully satisfied buu noqonayaa satisfied I mean 250 baa qaadanaa 250 baa qaadanaynaa maadaama 250 uu ka yar yahay 300 250 baa qaadanay then qaybtaas satisfied qaybtan 250 marka 250 laga jaro xagga maxaan u hariyaa eber baan u hariyaa qaybtan kalese
laba boqol iyo konton markaa saddex boqol laga jaro maxaa noo soo harayaa konton baa noo soo haraya. Okay, steepkeena xigaan haddana aadaynaa. qaybtan koobaad already balance waan sameynay, xagga waxba kama haysano. qaybtan kale labaad baan imanaynaa. kanina noogu yar waa 6, ka kusii xigaya waa 7, hal baan xagga ka haysanaa. kan ugu yar waa 3, ka ugu yarna ku xigaya waa 4, labadaa markaan kala jarno hal baan xagga ka haysanaa. qaybta columnka markaan imaano ka ugu yar waa 3, ka ugu yarka ku xigaya waa 10, labadaa markaan kala jarno 7 baan xagga ka haysanaa. qaybtan 6 marka 4 laga jaro 2 baan haysanaa. 7 marka 4 laga jaro xaggaas 3 baan ka haysanaa. qaybtan waa fully satisfied maadaamay tahay waxba kama haysano. then keena noogu weyn waa kee, ka ugu weyn lambarka ugu weyn waa 7. 7 dhinacu ku aadan yahay baan fiirinaynaa waa column D. column D ka ugu yar baan qaadanaynaa waa 3. 3 aan u qaadanay demandigu waa 150, supply waa 400. labadaa mid ka yar waa kee, waa 150 kaasa yar. 150 baa kan xagga ku qoranaynaa. 150 markaan xagga ku qorano qaybtan D already satisfied bay noqonaysaa, maadaama D hore kaa satisfied sameynay kaa waa satisfied, kanna satisfied noqonaya, kanna satisfied buu noqonayaa, kanna satisfied buu noqonayaa. baaqi xagga waxba nooguma soo harayo. qaybtan kale 400 markaan ka jarno 150, 250 ba xagga noo soo haraya. iminka maxaa noo haray 4 baa noo soo hartay bay ka dhigan tahay. okay, aan sii soconno stepkii afraad markaan marayno. qaybtan already fully satisfied bay noqotay. qaybtan kale 7 marka 6 laga jaro hal baan leenahay. 4 marka 4 laga jaro eber baan leenahay. xaggan fully satisfied weeyaan. qaybtan kale 6 marka 4 laga jaro 2 baan leenahay. 7 marka 4 laga jaro 3 baan leenahay. qaybtan waa fully satisfied, waxba kama lihiin. lambaradan ka ugu weyn waa kee, waxa ugu weyn waa number 3. number 3 baan goobaynaynaa. number 3 markaan goobayno waxaan ku aadaynaa toos qaybta ku aadan tahay number 3 ayaan toos fiirinaynaa. markaa 7 iyo 4 ka yar baan qaadanaynaa, 4taasaan qaadanaynaa. hoos waxaan haysanaa 50, dhinacan waxaan ka haysanaa 250. 50 baa u yar, markaa 50 baan qaadanaynaa. markaa qaybtan waa fully satisfied, columnkan B buu noqonayaa maadaama xaggan hore already satisfied baan sameynay. kana satisfied noqonaya, kana satisfied buu noqonayaa. 50 marka 50 laga jarana xagga maxaan haysanaa eber. qaybtan maxaan haysanay 250 baan haysanay. 250 marka 50 laga jaro maxaan haysanaa 200 ba xagga noo soo haray. then laba cost baan xaggan yaa noo soo haray 4 iyo 6. labadaa ka yar baan qaadanaynaa, waxa yar 4. 4 markaan qaadano xagga 250 baan haysanaa. dhinacan kale waxaan haysanaa 200. 250 iyo 200 kee yar, labadaa 100 baa yar. labadaa 100 waxaan ku qoraynaa. labada 100 markaan ku qorno xagga rowgani markaa muxuu noqonayaa satisfied buu noqonayaa. kan marka hore satisfied buu ahaa, kana satisfied buu ahaa, kana satisfied buu noqon. labadaa 100na markaa 200 laga jaro xagga eber baa noo soo haraya. qaybtan kalese 200 marka laga jaro 250 maxaa noo soo haraya 50. then our last cellkii baan taaganahay oo ah 6. 6da dhinacan gadaal maxaan ka haysanaa 50, hoosna 50 baan ka haysanaa. 50kaa soo qaadanaynaa, isaga satisfied baan kaa noqday. 50kiina xaggaasaan ku jarnay, maxaa noogu soo dhacay xagga eber. xaggan hoosena 50 marka 50ka laga jaro eber baan soo haray. taasi marka maxaan tusaa fully allocated baan sameynay. seen ku ogaan karnaa waa inay hoosta demandigoo dhan eber noqdaan, supplyaguna waa inuu eber noqdaa. dadkiina aan saa ugu kala qaybinay. aan u kala qaybinay waxaana la weydiiyey ba ahayd find the total cost of transportation by using Vogel approximation method. marka total costiga see baa loo helayaa, waxaa loo helayaa cell walba intii aan u allocate garaynay baan ku dhufanaynaa, oon isku wada daraynaa. markaa see baan noo helaynaa sidan. markaan isku wada darno waxaan helaynaa akhiritaanka 3150. I hope inaad fahanteen baan malaynayaa. fadlan haddii aad qabtaan wax su-aala la xiriira please inoogu soo inbox gareeya qaybta comment sectionka. xaggani waa Hanuun Virtual Academy. inoo like gareeya, share noo sameeya si aan u wada gaarno ardayda u baahan, noo sii gaarsiiya. waa anigoo ah Abaadir Daahir. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.